dhakhtarad ka soo jeeda dalka Sacuudiga ayaa waxa ay tiri waxa imaaday isbitaalka wiil lagu magacaabo Maxamed oo ku jira da'da 30. hooyadiis oo xanuunsan ayuu waday waa uu celcelinayaa oo waxa ay doonaysaa in ay ka baxsato wasaq ayayna dharkiisa ku haleynaysaa iyadoo dharbaaxaysa kadib waa u dhoola cadeynaya waxyaabihii ay ku haleysay ayuuna iska nadiifinayaa markii la soo gaaray waqtigii uu la kulmi lahaa dhakhtarka si naxariis leh ayuu u soo waday hooyadiis iyadoo u qoslaysa sida dadka waalan oo kale dhakhtaradii ayaa waxa ay weydiisay yaa waayo qoftaan waxa uu ku yiri waa hooyaday maxaa ku dhacay marka waxa uu ku yiri waxa ay dhalatay iyadoo caqli aan lahayn sidee ku dhashay marka adiga awowgay ayaa u guuriyay aabahay si ay carruur u dhasho aabahay waa guursaday sanadkii ugu horeeyay ayuuna furay uur ayay qaaday aniga ayayna dhashay laga soo bilaabo waqtigii aan jiray 10 sano ilaa hadda aniga ayaa xanaaneeya oo cuntada u kariya haddii aan doono in aan jiiftana xarig ayaan lugteeda ku xiraa si aysan iga baxsan oo aan u waayin waxa ay ku tiri maxaad u keentay halkaan waxa uu ku yiri waa ay xanuunsan tahay hooyadii waa ay qoslaysaa dharkiisa ayayna haleynaysaa isagoo u dhoola cadeynaya ayuu gacmaha ka qabanaya waxa ay ku tiri muku garanaysaa inaad wiilkeeda tahay maya wallahi ima garanayso in aan ahay wiilkeeda laakiin Allah ayaa garanaya in ay tahay hooyadii ayaa hadalka ka dhex gashay waxa ay ku tiri beenlow ayaa tahay maxaad ii wadi weysay si aan u soo cumraysto waxa uu ku yiri hooyo soo kuma dhihin waan ku wadayaa dhakhtaradii ayaa waxa ay tiri oo hadda cumro miyaad u wadaysaa waxa uu ku yiri mar walba oo ay weydiiso waan u wadaa ma doonayo waxa ay ku hamisay anigoo awooday in aan sameeyo in aan ka hor istaago iridda ayay ka baxeen isaga iyo hooyadiis markii ay hawshoodii dhammaysteen albaabka ayay xiratay dhakhtaradii ilin ayayna isku celin weysay waxa ay tiri waan maqlay baarinimo laakiin wiil dhalinyaro ah oo hooyadiis aysan garanayn una adeegaya oo waxa ay doonayso u sameynaya waa wiil baariya oo awooda in uu geeyo hooyadiis goobaha lagu xanaaneeyo dadka xanuunsanaya laakiin aan sameyn oo isaga gacantiisa ku xanaaneynaya si albaabka jannada mar walba ugu furnaado waxaan idinka rajaynayaa inaad u dirtaan qof waliba si aynu u garanno qiimaha hooyada Allah ha xafido dhammaan hooyooyinkeenna inta dhimatana Allah u naxariisto waad ku mahadsantihiin daawashada muuqaalkan haddii aad ku cusub tahay channelka maanta subscribe si ay kuu soo gaaraan muuqaalada cusub